alxamdulilah waa guul weyn. qaar ka mide hawlihii maalmahan aan wadnay gabdhihii lagu laayay xaafadda Islii xog cusub baa ka soo baxday. waxaa la helay gabar la socotay gabdhahaasi oo badbaaday. waxaa kaloo la qabtay gaarigii hawsha fuliyay. waxaa kaloo la hayaa nin isaga laga shakisan yahay in hawshan uu ka dambeeyay. alxamdulilah waxaa weeye waa hordhac. laanta dambi baarista ee dalka Kenya ayaa hadda shaacisay arrinta iyada ah in gaariga la hayo gabar iyadan habeenkii lala qabtay oo xogteeda aan bixin doono oo hadda DCI-da joogto yaa iyadan ma taqaanay yaan haynaa iyo nin inuu hawsha fuliyo loo mareynayo oo waliba darawalka gaariga qaar ay leeyihiin iyo gaarigi hawsha fuliyay inta gacanta lagu hayaa. marka waa xog hordhac ah oo soo baxday. gabdhahana bari garinka hore ayaa baaritaan lagu sameyn doonaa. ninka u qaabilsan baaritaanka dhanka Kenya dhanka cilmi nafsiga aad u yaqaan kuna takhasusay dadka dhintay in DNA-ooda wixii la qaado baaritaan ku sameeyo Johnson yaa bari baari doono. galinka dambana gabdhaha laba ka mid ah yaa la aasi doonaa haddii ay yiraahdo. marka xogaha beenta ah baraha bulshada lagu waday ee aan lahayn daaya tana ka mid ah maanta inay soo baxday oo qaybo ka mid ah hordhaceeda maanta aan gacanta ku helno. alxamdulilah ilaahay aan ku shukrino haddii maanta qaybo ka mid ah hordhacoodiba haddii ifaalahoodiba aan aragnay. aan ku bilaabo marka qodobkeena ugu horeeyo. kow gabdhihii habeenkii waxaan ogay inay saddex ahaayeen: waris, aamino iyo nusayba. gabar kale la socoto lala afduubtay maanan ogeyn. maanta markii shirkii Islii community ay qabanayeen 4 hooyooyin baa iyagana yimid oo imaaday oo ooyayo oo ilayhin ciyaal baa naga maqan oo la nahay. gabar loo maleynayo marka sheegtay laakiin iyadu waxay sheegtay in gabdhaha lala afduubtay marka iyada ah, laakiin ay la baxday lacag madax furasho ay weydiiyeen 1 milyan oo shilin Kenya inay Ethiopian bank in lagu shubay oo saa'id lagu soo daayay. 1 milyan oo shilin Kenya Ethiopian bank lagu shubay. hawshu way socotaa marka kadib baa la sii daayay. marka meydadka meelaha lagu kala tuuro fiiri fogooda inta leeyihiin waa Parkland oo garanaysaan, Bahati oo Shishintiri korkeeda ah, Machakos oo county kala ah duurkiisa waliba intaas lagu kala tuuray. nin loo maleynayo inuu isaga ka dambeeyay ilaata dambi baarista gacanta ku hayaan oo hadda baaritaan ku socdo. gaarigii hawsha lagu fuliyayna waa ka hadda daawanayseen isagana waa la hayaa. marka hadday muuqaalka ka horreeyay waxaan ku sheegay in mudanaha laga soo doorto xaafadda Islii Yusuf Xasan inuu noo sheegay inay u tageen madaxa booliska oo uu u sheegay in laba koox loo xilsaaray baaritaanka ayada ah. laba kooxdii ay ka koobanta 50 iyo ka badanba loogu talagalay inay baaritaan dhammaystiran inay sameeyaan. laanta dambi baarista oo Soomaalidu ay gacanta ku hayaan Maxamed Amiin wiilkeedii wuu maqan yahay hadda ma joogo wadanka, laakiin ninkii ku xigay oo John yaa isagana arrinta ayada ka howlgalay oo sheegay isagana inuu xilsaaray 2 guddi oo hawshaas fulinaya. hawshana qayb ka mid waa mid hadda la qabtay in gaariga gacanta lagu dhigay, in nin la soo qabtay, in mataqaanay gabadhaas oo idan sheegtay in la qabtay idan mataqaanay la hayo. hawlo badan baa marka socdo. hawlo badan yaa socdo. marka waxa weeye amniga in khalkhal la geliyo oo xaafadan la cabsi geliyo yaa la rabay. waxaa lagu tuumay xaafadan lacag badan inay taalo dadka intii la afduubto in lacag la weydiinayo. muuqaalka kii ka horreeyay waxaa dad ku soo gudbiyay gabdhaha mid ka mid ah hooyadood oo hadlayso waxay tiri gabadhii habeenkii 12 habeenkii ilaa 9 saac laga soo galay ama 3 habeenimo iyana soo wacisay taleefanka maanan qaban waan jiifnay bay tiri. waayo inay madax furasho ka reebaa laga yaabaa waatan hadday taaganta waa aragtaa. marka hadda DCI-da waxa gabadha waxay u sheegtay in madax furasho laga rabay 1 milyan laga qaaday kadib markaan iyada la sii daayay.
dadku waxay isweydiinayaan intaan u hadli weyday adiga laftaada ma hadli kartid qofkii dadkii lagula hayo la laayay oo meydkooda lagu tusay ma la hadli karaa suurtagal maaha laakiin laanta dembi baarista Kenya oo ognahay Kenya hadday dowladdu wax ka soo gasho iyada ay ku disho in dal lama saarayo horta weligeed daaraysa laakiin hadday dowladdu wax shaqo ku lahayn inta badan waxa way baaritaan hufan bay sameeyaan wayna daba galaan wayna soo saaraan ani laba baaritaan oo sidan oo kale ma taqaanay is aan uga hadlay yaa jiray oo DCI oo shaqeyn hoose aan lahayn aad u wada shaqeynay oo labadiba guul waaweyn ay ka soo hoyeen kiis waa kiis gabadhii ma taqaanay islii ka afduubatay gabdhaha wada ogeydeen kiisi kalena wuxuu ahaa isagana kiis kale isagana xasaasi ahaa yaa isagana ma taqaanay jiray oo xaafadda islii ka dhacay dilal laga geysanayay intiba way soo saareen mar waxaa jirtay ilmaha la xaday la sheegi jiray waa soo qabtay marka hawluhu halkaas ay marayaan aanu imaado marka qaybtan barabagandada ibraha bulshada ka socotay ilaa shalay intii kiiskan ku jiray anigu waxaa idin lahaa war in adeerayaal oo dadka laga dhintay qalbigooda aan ilaalino qof baa shalay ku soo qoray islaan baan la qabay islaantii ama taqaanaya ka dambeysay bal inta dambi qofka uu galay ay kow wuxuu qalbi jabiyey reerkii labo islaan aan dambi galay dambi saareen waxay ma taqaanay sameeyeen kala shaki oo reerka dhexdiisa ah waxyaalo tiro badan bay ma taqaanay abuuray intaas wuxuu ku raadinaa qofka asaga ama fuisa ku raadiyo ama ku raadiyo ma taqaanay follow wixii la mid ah oo qaybta TikTok laga helay si la sheegay waxaas ku raadinayeen ismaysan dhihin bal dadkan ilaaliya muxuu qalbigooda wallahi maanta markii aan tagay goobtii muxuu ahaa maanta barofdeed waa ka socotay gabdhihii ehelka ka soo qayb galay hadaad aragtay ilinta wax ka daadanaya inaadan wax la mid ah soo qorin lahayn murugada iyo walbahaarka iyo reerka wax ka muuqda hadaad aragto waad yaabaysaa waayo ehel saddex qof hal mar ka baxday oo waliba si xun loo galay inaad ku dhaadato oo ku digato wax laga fiican yahay baraha bulshada marka been iyo propaganda yaa tahay war Kenya waxay leedahay laanta sirdoonka DCI baa la yiraahdaa galabeejkooda goobo lagala xiriiray leeyihiin ka raadiyo xogta oo helaysan xogta oo sax ah helaysan halkaas baaritaan ka sameyn kartaa oo ka raadin kartaa laakiin haddii aad DCI aad la xiriirin ama aad ka raadin beejkooda ama aad xogta xad ka raadin ma soo gudbin kartid xog sax ah ma keeni kartid beenta weyn marka waxaan Soomaaliya isla dhex marayaan baa sameyn doontaa marka Johnson isla baaritaankiisa kulay berri iyo ma taqaanay yumeedka iyo ku sameyn doona marka iyadana xogta ka soo baxdana insha Allah waa arki doona waana u wada joognaa halkan baan ku soo gudbin doona insha Allah walaalahan qayb ka mid ah cadaaladii maanta way u bilaabatay hadii la soo qabtay qaar ka mid oo maanta gacanta lagu hayo ilaahay mahadi intaas ku soo afmeeray dawal muuqaalkan xogaha waa isdaba socda anna waxa u soo taaganahay anytime oo xog soo baxdo inaan ku soo gudbiyo farmasantii